wararka idaacadda kulmiye ka helaysa deegaan xeebeedka Jasiire ee duleedka Muqdisho ayaa la sheegayaa inay halkaas isku horfadhiyaan koox maleeshiyaad ah ee ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliiska taasoo la sheegay inay salka ku hayso dagaal culus oo halkaas ka dhacay saacadii aan soo dhaafnay dagaaladan oo ahaa kuwa dhowr mar la isku soo noqday ayaa waxa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ayaa isku haysta qaad laga keenay Kenya ee halkaas laga dejiyo ee ciidanka oo arintaasi ka biyo diidan halka maleeshiyadan macawisleyda ah ay doonayaan inay qaad ka dajiyaan kadibna Muqdisho soo galiyaan inta loo yahay 3 qof ayaa dagaalkan ku geeriyooday iskugu jira dhinacyadii dagaalamay dhaawac tira kale Maxamed Abdul Qaadir oo kamid ah dadka deegaanka Jasiira ayaa Kenya uga warbixiyay sida deegaanka wax uga jiraan marka waxa isku wareer koox maleeshiyaad oo meesha joogo iyo rag oo booliis oo meesha aan jagboonti u yili oo haramada oo meesha looga tagay marka kooxdii macawisleyda ayaa weerartay ninka la yiraahdo meesha xaaladdu hadda way degan tahay marmarka qaar waxa dhacay xabado goosgooda walaal way soo fadhiyaan qasaaraha 3 qofood 3 askari oo booliis iyo 5 oo dhaawac la sheegay 3 dhimasho walaal qaad baa meesha ka diga qaadkuna ma ogolo dawladdu waa kii hore u jeesay marka qaadka bay dejinayaan nimankan booliiskuna way hortageen qaadkii dejinay maleeshiyaadkina iyaguna meel aan u fogeynay jiraan oo dhowr kiiloomitir jirta dhinaca koonfur marka iyaguna xabadada tuurayaan dadkii oo meesha joogay waa qaxay qaar Muqdisho ku carareen qaar hoodkii galeen qaar dhinacan oo dalkii oo dhinacan iskoondar hagiyo carareen marka xaaladdu ma ka jirto meesha dhowr mar ayaa deegaankan iyo qaybo kamid ah Muqdisho waxa uu ka dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda dhexdooda iyo maleeshiyad hubeysan oo aan aqoon cid ay hoostagaan dagaaladan ayaa sidaan oo kale waxa ka dhashay khasaare badan welina dawladdu warcad kama soo saarin qaybo kamid ah suuqyada qaadka ee Muqdisho waxa si qarsoodi ah loogu iibiyaa jaadka laga keenay Kenya oo khilaaf kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya halka kan Itoobiya si caadi ah suuqyada loogu iibiyo